dadka nooga yimaada intaa wey ninka Soomaaliga wuxuu ku dhex wareegaa mathalad Bermuda saddex geesood il jin sixir jin il ma dhaafo iyadoo uu dhakhtar aadi karo inta waxaan macna lahayn kaniin inta la siiyo la daweyn karo ida exercise isaga baahnaan karo wuxuu ku leeyahay ama waa la sixray ama waa la ilaystay ama jinba ay haya iyadoo jinkunu sax yahay nusuus ay muujisay iyadoo sixirku sax yahay nusuus ay muujisay iyadoo ishu sax ay tahay nusuus ay sheegtay oo qofkii dafiraayay islaamka oo shaqo ku lahayn oo gorgortan ma gasho hawsha laakiin in wax kasta loo celiyo il yani waxa laga yaabaa in maadadii aqrin uu leeyahay daraad ba maadadii hore number 1 ahaayo marka waxaan ka baqayaa in la ilaystay kadibna waa kan ama oday inuu tugu yimaado ku yiraahdo gabadheeda number 1 bay ahaan jirtay wiilkii number 1 halka sanadkan uu dhacay ilba haysan u malan sheekhu quraan ku aqri laakiin waxa laga yaabaa oday inuu san ogeyn ama hooyadu aanay ogeyn inay gabadhu iska seexatay sanadkan wiilka iska seexatay waan gartay xisaabtu kuma jirto waa la ilaystay kulliya waan gartay hadduu arko xoogaa inay si kale markuu noqdo xaaladda ay jiqo noqoto ibtiluhu ka bato qofku waxa laga yaabaa inuu markuu seexdana maanta riya aanu ka bixin xaalad kale marka uu gal inuu waa la sixray ama uu yiraahdo maya hawla kala jira jin baa jira intuba way jiraan laakiin wax walba waxay leeyihiin dawada loo maro inaad dusha ka saartid maaha laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado saddexdaba dawadooda hal xabo maxay tahay dawadooda daweysay lagu garanay dawadooda waa hal xabo maaha shuqlada meelaha dadku la wareegan dawadooda qofkan quraanka hadduu isaga akhristo oo weysadii uu badiyo oo dawardiga badiyo waxaana iska haadayaan daazet wax badan way la raadiyay meesha ma jiraan